meeshaan caawa waxaan isugu nimid annagoo ku faraxsan dawladdii dhawaan laga doortay dalka si gaar ah farxaddaas waxaa keenay inay dawladdan tahay dawlad muqadas ah oo lugaheeda ku taagan micnaheeda waxa waaye qarannimadii 22 sano naga dhuntay inay haddana ilaahay nimcadiisa noo soo noqotay waxay la tahay dhammaantayna inaan isweydino qarannimadii aan wada ogsoonahay sida ay ku timid iyo sida ay ku dhalatay in sagaashameeyadii gacnahayna ay ka baxdo waxaan filayaa muddadaas dheer inaan dhammaantayna bal maskaxdayna gadaal ugu noqonay aanna ogaanay dowladnimo waxay tahay iyo qarannimo haddaba waxaan aniga ay ila tahay inaan isweydino kolliba aragtadayda maxaan u aragnaa dowladnimo maxayse tahay qarannimo haddii ereyadaasayto aanu fahmin waxaan u malaynaa dabaaldegga iyo feestooyinka ee aanu u dabaaldegayna dowladnimadayna hanashadeedaa ka weyn aana ka muhiimsan waxay ila tahay anagoo soo koobayo marku horeysa inaan fahmno dowlad maxay tahay dowladda waa annaga shacbiga waay laakiin badanaabo madaxda aan u dooranay inay na hogaamiso ayaan u haysanay inay ayaga dowlad yihiin qof walboo annagay waa inuu ogaado dadka ku hogaaminaya ama dowladda hogaamiyo waa dad ay ummadda ay dooratay ama si toos ha u doortaan sida waddankan ka dhacayso shacbiga loogu tartamayo hortiisa ama dadkan wakiilanayo annaga mas-uuliyiinta naga ahaa ha soo doortaana laakiin waa dad annaga magacayna lagu doortay magacaynana meesha ku tagay marka maxaa loo baahan yahay dowladda marka waxaan u arkaa aniga inay ummadda u shaqayso maxay ugu shaqaynaysaa qandaraaskaas muxuu yahay dastuur waaye dastuurka aada maqlaysaan qaran kastoo jiro iyo dowlad kastoo jiro dastuur ayay isku maamulaan dastuurkana waxa waaye heshiis shacab ee ummaddaas wada gashay wuxuu ka turjumayaa waxa ay himiladooda tahay waxa ay baahidooda tahay waxa ay dowladnimada iyo qarannimada aga baahan yihiin iyo waxa waajibaadka ka saaran qarankaas iyo dowladnimadaasayto haddii aanan dastuurkayna aanan nin walbo annaga ee uusan aqoon u lahayn waxaa dhacaysa inayna noo kala baxsaneen waxa annaga muwaadin ahaanan xaq u leenahay iyo waxa aan waajib nagu oo waddankaas nagu leeyahay waxay ila tahay gadaal uguma noqonayo asbaabihii keenay in qarankii aan dhulka ku jiidno 22 sano ka hor sababihii keenay waan wada ognahay laakiin sababahaasayto qaladaadkoodii haddaanu daacadnahay ay dhab naga tahay in qaran la-aan iyo dal la-aan ay dulinimo tahay waxaa loo baahan yahay sideen ku hanan karnaa marka inaynan dib dambe gacnayna aga bixin waxaan ku hanan karnaa dastuurka oo annaga nala horkeeni doono ee hadda ku meel gaarka waxaan rajaynaynaa baarlamaankan cusub inuu dhaqso usoo dhameeyo markuu dhameeyo waxaa jiri doonta muddo shacbiga loo qaybinayo nin walba markuu loo qaybiyo ee uu soo baxo aftiyaa la qaadi doonaa aftida ka hor waxaa muhiim ah nin walba inuu ogyahay waddankaas muxuu ka doonaa muxuu ku leeyahay maxaase laga doonaa asaga
haddii taas la waayo ee annagu dowladda aan u qaadano shaqsiga markaaseeta dowladnimada aan u dhiiban inuu isaga yahay dowladda haddii aanan dowladnimada iyo qarannimada meel aan uga soo wada jeysanin ee waxa la kala qaybinayo gumaysaha laga dhaxlay haddaanan iska dhaafin ee soomaalinimo dalkaas inuu naga mid yahay haddaanan ku wada shaqaynin dhibaatada meesheedii ku soo noqonaysaa waxaan idin ogeysiinayaa raggii usoo halgamay qarannimadan maalkooda iyo dhiigooda iyo wax walbay u soo hureen waxaana lagu kasbaday ee adduun weynahana noo ogolaaday inaan qaran noqono ummad midaysanoo hal magac lahaa la ahay laakiin nasiib darro markaan qarannimada qaadanay ee markaa ay gaartay arrintu inaan annagu ismaamulno ayay arrin farahayna ka baxday waxayna farahayna aga baxday in aan ka midowno hal aragtina ka yeelano waddankaas iyo danta guud oo naga dhexaysa ayaan garan weynay anagoo aanan ku sii dheeraanaynin anigoo aan ku sii dheeraanaynin madaxdan cusub oo la doortay waxaan u rajaynayaa ilaahay inuu ku garab galo hawshooda culus oo loo xil saaray laakiin waxaan idin sheegayaa haddii dowlad fiican la helo shacbigeedaa fiican haddii dowlad xun la helana shacbigeedaa xun marka taas aan iska ilaalino calaykum asalaam Maasai.